salaadii baa shahna la siiyey markaasaan baxnay burco ayaynu ku soconnaa burcaanu tagnay labadii duhurnimo meelaha dabeetana waxaanu soo gaxaysanay 10 askari oo ah booliiska 10 askari oo militariya 10 askari oo asluubta ka tirsan saddex ciidan markaa jiray dhulka ayaanu maray inta la roobar aanu siinay dhulka mara wala sii diyaar gariyay ciidanku oo dabcan war baa naga soo horeeyay dhulka mara baanu nidhi anagu diyaaradii baanu ku kacnay haddana labadii duhurnimo meelaha maxbuuska anagu sidina iyo dhowrkaygii askari anagoo wadana shantii galabnimaanu laasacaano tagnay burco laasacaano dabeedna ninkii waanu xaraysanay waanu xidhnay ninkii jeel baanu ku ridnay waanu hor seexanay subaxii baanu tagnay ninkii dardaaran baa la yidhi maxaad kala sheegaysaa ee cusub dardaaran wuxuu yidhi waxaan sheegayaa ma jirto waxaan idiin sheegayaa buu yidhi nimankii daraawiishta aan ka tirsanaan jiray ee reer burco ha laygu salaamo salaam ha layga gaadhsiiyo waxaan kaloo idiin sheegayaa buu yidhi in yar oo dayn ah ayaa burco laygaga lahaa walaalahay iyo ehelka wixii maqlaya ha layga bixiyo dayntaa yar jeel baanu ku ridnay waanu hor seexanay subaxii baanu tagnay ninkii dardaaran baa la yidhi maxaad kala sheegaysaa ee cusub dardaaran wuxuu yidhi waxaan sheegayaa ma jirto waxaan idiin sheegayaa buu yidhi nimankii daraawiishta aan ka tirsanaan jiray ee reer burco ha laygu salaamo salaam ha layga gaadhsiiyo waxaan kaloo idiin sheegayaa buu yidhi in yar oo dayn ah ayaa burco laygaga lahaa walaalahay iyo ehelka wixii maqlaya ha layga bixiyo dayntaa yar war kalena ma jiro asbaxdii 8 meelahaas waa ka 10kii tiirkaanu ku xidhnay ma muujiyay ninkaasi marnaba inuu ka xumaaday inuu madaxweynaha dilay naba weligiiba lagu maaray qosol lagu maaray halka cadeen lagu maaray sabab ma uu dilay buu marka mesela baaristi ma sheegin baaristi anuu baa dilay buu cid baa ka dambeysay waxba waxaas ma jira wax clue ah wax raad raac ah oo uu bixiyay ma jiro cid ka dambeysay iyo wax ma jirto ama hal la dilo ama wax kasta lagu sameeyo waa laga waayay wax kale tiir baad ku xidhnay ninkii subaxii dambe tiir baan ku xidhnay halkaa qiso fani ah ayaa ka dhacday 30kii askari ayaanu safnay meesha soo joojinay ninkiina tiirkaasi ku xidhayay anigu waxaan ahay markaas sarkaalkii meesha maraayay ninkii u xil saaraa baan ahay in ninkaa la dilo marka amar baad bixinaysaa waxaad odhanaysaa hal xabo nin walba hal xabo cabe shiish waxaad shiishaysaa ninka dilka ku xukuman ee tiirka ku xidho marka ay sidaa yidhaahdaan ay shiisho maad leedahay min hal xabo kuri birra markay 30kaasi ku ridaan xeeraaliyihii wadaadkii dhakhtarkii iyo adiga ayaa u tegaya soo eegaya ninkii inuu dhintay iyo in kale markaan u tagnay ninkii ma dhiman tiirkii weli ku xidhan yahay dhiigna kama daadanaynin xitaa dabeedna waa soo noqonay halkii baanu safka ka galay askartii baa mar labaad amray min hal xab cabe ninkaa ku rid dilka ku xukuman ee tiirka ku xidhan mar labaadkiina muu dhiman ninkii 30 xabo lagu riday iyo 30kii hore 60 muu dhiman su'aal ku weydiinay halkaa ku joog 30 kala xabay lagu riday
macnaheedu ma waxa weeyaan waan la agmariyey ba waan la xukumin mise awli u noqday oo wax kale looga dhigin waa ka sheekayn doona way mar saddexaad kan kur min hal xabo ma u dhiman ninkii mar saddexaadkii ayaan ku rid min hal xabo ayaa lagu rid markaa tiirku ku xidhnaa wuu soo ciiray wuu soo dhacay qoladeedii soo egeysay baa tagnay xeeraalihii wadaadkii aniga waanu tagnay waa dhiigay waanu soo dhacay laakiin nafta kama bixin maanu dhiman halkaa markay marayso ninka sarkaalka ah ee u xil saaran in ninkaa la dilo maxaa la gudboon su'aal adag ma isagaa istooganaya ma ninkan isaguna xabad ku dhufanaya ma cid kale u dirayaa ma askartiibu haddana leeya waar wixii hore waa qaribteene kaca istaaga oo ninkii mar dambe ku rida isagoo jiifaba maxaad samayn lahay waa arrin sharci bay leedahay laakiin sharci bay leedahay dabcan u qallafsan iyo nidaam haddaan ahay anigu sarkaal sharci yaqaana waan aqaana waajibaadka halkaa markay joogto adaa gacanta ula tegayso saaran waxaase la isweydiinaya waa adigii su-aashay weydiiye maxaa askarta u dili weyda soddonka xawiile 90 xaba maxay ugu bixi waan u dili way waxaan qabaa inay askartu qabaan fikrad ah inuu dembi uga imaanayo haddii nin xabadoodu ay ku dhacdo ninka mid kastoo kamida wuxuu qabaa hadday xabadiisa ku dhacdo ay disho ninka inuu dembiile yahay xagga aakhiro way marka sidaasaa qabiil iyo waxaa maaha sidaas daraaddeed ayaa xabadda loo agmariyey ninka markii saddexaad oona dhiigii isagoo ka dhaayo oon dhimanin baastolad baan u dhiibay isbatoore 5 ku dhufo adoo ag taagan anaa ag taagan yes dabeedna 5 buu ku dhuftay dabeedna wuu dhintay dabeedna waa la aasay ninka yidhaahdo muu dhiman lamana dilin meel lagama geyno waa beentiis anaa markhaati ka anaa markhaati ka ah kolley inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariistay marxuum cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey iyo madaxweynihii labaad ee dalka hooye ee Soomaaliya marxuumka waxa uu ku dhashay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug sanadii 1919 waxa uu dugsiga Quraanka iyo waxbarashadiisii dhameeyay sanadii 1936 waxa uu bilaabay inuu noqdo ganacsade kadibna shaqaale ka shaqeeya howlaha civil servant maamulkii Talyaaniga ee maxmiyada wuxuu noloshiisa ku qaatay wixii intaasi ka dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka mid noqday ururkii Somali Youth League ama SYL wax yar kadib markii la aasaasay sanadii 1943 waxaana uu ku biiray maamulkii Ingiriiska ee Somali British Administration Civil Service wuxuu waxbarashadiisii dugsiga sare dhameystay 1953 isagoo weli ka shaqeynaya civil service waxaana uu helay core scholarship dalka Talyaaniga gaar ahaan jaamacadda University of Roma La Sapienza halkaas oo uu ka qalin jabiyay sanada markuu 1958 wuxuuna sanad kadib ku soo laabtay dalka Soomaaliya kadibna waxaa loo doortay inuu noqdo xubin ka tirsan golihii lagu magacaabi jiray Somali Legislative Assembly markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay 1 Juulaay 1960 waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuuna markiiba bilaabay inuu dadaal u galo sidii uu guulo uga soo hooyin lahaa dhinaca arrimaha dibadda wuxuuna dalka ra'iisul wasaare ka ahaa ilaa 1964 kadib doorashooyinkii dalka ka dhacay wuxuu markale noqday xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sanadii 1967 doorashooyinkii la qabtay laguna dooranayay madaxweynaha dalka ayaa waxaa loo doortay marxuum cabdirashiid cali sharmaarke inuu dalka madaxweyne ka noqdo kadib markii doorashooyinkii dhacay uu kaga guuleystay madaxweynihii xilka kaga horreeyay ee Soomaaliya mudane aadan cabdulle cusmaan aadan cadde wuxuuna bilaabay shaqadiisii madaxweynenimo 10 Juun 1967 laba sano kadib markii uu dalka madaxweyne ka noqday ayaa askari ka tirsan ciidamada ilaalada ka hayay uu toogasho ku dilay 15 bishii Oktoobar 1969 isagoo booqanaya gobolka Sanaag ee dalka Soomaaliya halkaas oo ay abaaro ka dhaceen 6 maalmood kadib markii dilkiisa uu dhacay ay ciidamadu dalka talada xoog kula wareegeen iyadoo weli lagu jiro baroordiiqda madaxweynihii la dilay ninka dilayna waa ninkii muuqaalka hore aad ku daawateen ee sheekada oo dhan ka soo sheekeynayay